marka teenager tahay ama marka dhalinyar tahay waxaad u baahan tahay saddex jaanib noloshaada ka dhistid waayo qofkaad adigu tahay ayaad ku keensataa waxaad heshid run ahaantii xilliga teenagerkaad ku jirtid ama kaga soo qabato 17 jir 15 jir 16 jir ilaa iyo late 20skaagu waa xilliga kuugu dahabsan ee ku soo mari doonta haddii aad waqtigaas si fiican aad u invest garaysid haddii aad waqtigaas si fiican xirfadahaaga u dhistid haddii aad xilligaas si fiican iimaaniyaadkaaga u dhistid haddii aad xilligaas si fiican jirkaaga u dhistid intaa wixii ka dambeeya si fiican ayaad uga faa'iideysan doontaa dadkana waad ka duwanaan doontaa insha Allah hadii ilaahay muuqaalka waxaan kula wadaagi doonaa 10 talo oo jeclaan lahaa in layla wadaagi lahaa markii aan dhalinyarta ama marka teenager ama early 20skayga markaan ku jiray channelkeena dadka daawadeen waxay u badan yihiin waa dad u dhaxeeya 18 jir ilaa 34 jir massive ilaa intaas waa inta ugu badan gaar ahaan waliba 18 jir ilaa 24 inta u dhaxaysa waa daada ugu badan ee Allahu musta'an channelkeena daawata insha Allah hadii ilaahay dhaado waxaan ku siin doonaa 10 tabood oo dhalinyarnimadaada aad ku horumarin kartid ama kaga duwanaan doontid hadhow toole marka late 20skaaga soo gaadhid dadka oo dhan kaga duwanaan doonta arrinka koobaad ee u baahan tahay Allahu musta'an dhalinyarnimadaada dhistid waxa weeyaan inaan dadka isgarab dhigin waxa ugu horeeya Allahu musta'an qofku markuu teenager yahay hareerihiisu eegaya saaxiibadii buu eegaya dadka ka horeeyo eegaya mustaqbalka hadii la yiraahdo 5 sano ka bacdi wuxuu haystaa in Allahu musta'an wax fog tahay waa xilli uu qofku soo kacayo oo isku haysto inuu adduunyada dhan isagu soo dheeryahay waa xilli uu qofku isleeyahay oo marxalad uu qof kasto dhalinyarnimo uu soo maro weeyaan waxa ugu horeeya u baahan tahay xilligaas waxa weeyaan inaad naftaada barbardhiga ka daysid inaad dadka kale barbardhigin maanta social media soo baxay isbarbardhig waalan adigoona xataa aanan ka fikirayn kugu qasbaya Allahu musta'an inaad ka fikirtid sida dadka kale isku barbardhigi lahayd qofka kale waxaas buu haystaa waxaas buu sameeyaa xagaa buu joogaa waxaas oo dhan inaad samaysid waxa ugu horeeya u baahan tahay waxa inaad naftaada isbarbardhiga ka daysid 7 bilyan ee adduunka ku nool hal qof oo kula mid weligaa ma soo mari wana soo mari doono taariikhda aadamaha way adag tahay Allahu musta'an qof kula experience kula waaya aragnimo kula mida waa mucjisooyinka Ilaahay qof kasta oo adduunka ku jooga Ilaahay uu ka duwan marka qof kale waxaad iska barbardhigtaa bayraatay ma jirto adigu waxaad ku fiican tahay jirta waxaad haysatid baa jirto qofkaas una haysan waxa hor yaala oo qofka kale haysan baa ayaa jira marka adigu waxyaabaha haysatid waxyaabaha dadka kale haystaan iska ilow markasta marka dhalinyar la yahay Allahu musta'an xilliga teenager lagu jiro waxyaabaha ugu adag ee qofku sameeyaa waxa weeyaan inuu naftiisa barbardhig ku sameeyo dadka kale marka arinta ugu horeysa waxa weeyaan naftaada inaad ka ilaalisid inaad dadka kale barbardhigtid qof ka duwan baa tahay qof unique tahay qof Ilaahay shafay baa tahay qof waxa tahay taariikh gooliye leh history gooliye leh adduunkan inuu wax ka qabto Ilaahay u keenay marka qof kale waxaad iska garab dhigto ama isbarbardhig qof kale aad ku garab sameysay qabiirti ma jirto marka markasta isku day inaad adigu isbarbardhigtid sanadkii hore sanadkan miyaan ka fiicana bishii hore bishan ka fiicana maanta iyo shalay midkaan fiicana inaad adigu qofkaada haydaad iska garab dhigtid oo dadka kale aad iska garab dhigin Allah baaba tiraado ma jirto barbilowgaaga ama adu marka barbilow tahay ee yar tahay way teenager marka tahay waa barbilow ku jirtaa barbilowgaaga ha barbar dhigin bardhamaadka dadka kale waxa dhici karta qofkan inuu 10 sano ka weyn yahay 20 sano ka weyn yahay waqti badan uu waxan ku soo jiray aad isku barbar dhigaysid adiguna maanta aad noloshii ku cusub tahay oo dhalinyarnimadii ku cusub tahay oo waxaad ku cusub tahay marka waxaad barbar dhigtaa qofkaasi markuu xilligaygan marayay ama uu xilligan marayay sidee buu ahaa isbarbardhiga taa ka dhig laakiin isbarbardhig qof Allahu musta'an in badan ka horeeyay isbarbardhigtid naftaadii xaqeygin wad luminaysaa niyad jabna kugu keenaysaa kalsoonidii naftaada hoos u dhigaysaa arrinka labaad ee u baahan tahay marka teenager tahay waxa weeyaan inaad noqotid arday laakiin aanad noqon qof raaca oo cid kasta iska raaca nolosha diyo badan baa Allahu musta'an noloshaada kugu hagaagaysan cid kaliya aad u baahan tahay inaad raacdo Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo hadalka Ilaahay cid kale uma baahnid maanta boqolaal waxa jira influencers waxa jira boqolaal dad oo maanta nolosha dadka indhahooga jooga laakiin waxa la leeyahay waxba yaraatay qabtaynaayna jira xataa naftoodii aan waxba tirin laakiin maanta caana oo waxaas hadii aad dadkaas iska raacdid oo Allahu musta'an cid kasta raacdid way kugu adkaanaysaa marka inaad mar kasta shaandaysid dadka Allahu musta'an raacaysid haddaad qof raacdidna qofka u raac inaad wax ka baratid ha u raacin inaad iska raaco noqotid mar kasta arday noqo oo nolosha arday waad u baahan tahay inaad qof kasta wax ka baratid cid kasta wax ka baratid laakiin iska noqon qof wax iska raaca mar kasta unique baa tahay waad ka duwan tahay mar kasta isku day inaad Allahu musta'an unique-nimadaada aad haysatid oo qof kasta iska raacin sax dadka raac laakiin waxaad la socotaa ha noqotid inaad wax ka baratid laakiin yeena noqon inaad iska socotid arrinka saddexaad ee u baahan tahay inaad naftaada ku dhistid waxa inaad jirkaaga dhistid xilliga teenager-ka tahay jir fiican baad leedahay adduunka hadda kugu horeeya jirkaaga hadda soo qabsanaya koriima kugu socda marka inaad jirkaaga caafimaadkaaga shaqeysid inaad gym-ka tagtid inaad jirkaaga dhistid inaad cunto caafimaad qabtid cuntid inaad hurdo fiican cuntid marka laga hadlayo jir dhiska ama nasashada jirkeena saddex bay kala baxdaa kow inaad nasasho fiican heshid oo jirkaaga hurdo fiican siisid oo habeenkii dhafarkii waxyaabaha iska ilaalisid laba inaad cunto fiican cuntid oo diet fiican aad cuntid arrinka kale u baahan tahay waxa weeyaan inaad exercise samaysid saddexda hadii aad heshid wax badan baad Allahu musta'an dhalinyarnimadaada aad samayn karaysaa arrinka kale u baahan tahay inaad dhalinyarnimadaada ku dhistid waxa weeyaan inaad maskaxdaada dhistid maskaxdaada sidoo dhisi karaysaa maskaxdu waxyi inuu soo degay Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam dambeeyay marka waxaad u baahan tahay inaad aggressive ku noqotid lifelong learning saddex qaabad Allahu musta'an ayaad wax baran kartaa kow inaad akhrisid buug kasta oo isleedahay Allahu musta'an naftaada horumariyo gaar ahaan buugaagta
personal development naftaada horumarnay naftaada dhisaya way aragnimada dadka kale way qof dhan ba 15 sano way aragnimo la soo noolaa intaad fadhiisatid bad muddo yar saacadaha intaad qaadid aad way aragnimadiisa ku qaadanaysaa aad Allah musta'aan aad ku helaysaa 10 sano iyo 20 sano marka buugaagtu waa meesha ugu fiican aad ku invest gareyn kartid naftaada maalin kasta fadhiiso saacad 30 daqiiqo 40 daqiiqo isku day inaad Allah musta'aan wax akhridid oo fadhiisatid waa boring weyn wax akhrisku laakiin mar hadda la qabsatid wuxuu ku noqonayaa sidii balwad oo kale wuxuu ku noqonayaa sidii second nature oo kale arinka labaad ee informationada ku heli kartid waxa weeyaan inaad raacdid dad baa jira Allah musta'aan markaad aragtid attention-kaaga qabsada dadkaas waa dadka qabiilkaaga waxa jira qabiil tribe wax la yiraahdo qabiil la yiraahdo marka inaad follow gareysid qof kasta oo isleedahay qofkaas ni waxbaad ka faa'iideysaa ama waxbaad ka xaynaysaa YouTube-kiisa ha noqdo Instagram-kiisa ha noqdo inaad sameysatid koox role model kuwa ah oo ku dayatid sax maaha inaad iyaga noqonaysid laakiin waa inaad iyaga wax ka baranaysid waa inaad iyaga way aragnimadooda qaadanaysid marka maanta way fududahay social media jira dad yow badan baa jira channelada waliba wax ku oolka inaad dhageysataan inaad daawataan inaad day out ku noqoto waxyaabahan aad ka u jeclaa chornigaygii personal development aad u jeclaa waxa kamid ah channelada wax ku oolka kuwa buugta ha noqoto kuwa Allah musta'aan aqoonta ha noqoto dadka waan la saaxiibay oo saaxiiban Allah musta'aan kala dhigtay inaan si joogto Allah musta'aan loo joogo marka markasta isku day inaad dhalinyarimadaada Allah musta'aan aad raacdid channelada iyo dadka Allah musta'aan waxaad ka faa'iideysid dad yoga khashinkaana aad ka hadh imiga dhalinyaradeenna dad fiirsatid TikTok waxa ugu badan ay ku jiraan waa hiblaya maxay sameeyay hebel baa waxaan kala sameeyay intaas baa lagu mashquulo malaayiin ay daawanaysaa marka haddii aad doonaysid inaad markasta crowdka ama buuqa inaad markasta ka dhex baxdid haddii aad doonaysid waa inay dadka caadiga waxay sameeyaan wax ka duwan samaysaa haddii waxaan kuu ballan qaadaya wallahi haddii aad maanta bilowdid inaad ilaa 2 sano 3 sano aad follow gareysid ama daawatid dadka muuqaalada Allah musta'aan wax ku oolka soo galiya channelada buugaagta channelada horumarka nafta channelada ganacsiga iyo Allah musta'aan naftaada aad ku dhisaysid haddii aad follow gareysid 2 sano kaliya isbedelka maskaxdaada ku dhaca wad yaabi doontaa totally noloshin hore la mid ma noqonayso waxa kaliya inaad information iska qaadid maanta kaliya tamaahina inaad information ka ficil u rogtid fikrad kasto heshid inaad ficil u rogtid waan xasuustaa wallahi kaga soo qabo 2018kii ilaa iyo maanta maalin kasta waxbaan akhriyaa maalin kasta waxaan daawadaa intaas oo muuqaal maalin kasta waxaan dhageystaa podcast marka inay aggressive aad ku noqotid Allah musta'aan inaad dadka iyo channelada wax ka faa'iideysid arinka kale inaad audio books dhageysatid audio bookyadu aad bay fiican yihiin iyo podcastyo badan baa jira muuqaal baa jira 7 podcast ee ugu saameynta badnaa muuqaalka daawada aan daawan podcastyo fiican raadi oo personal development naftaada horumarinaya arinka kale naftaada ku dhisi kartid waxa inaad seminar kasta iyo meel kasto event ay ka dhacayso aqoonta ama fieldigaaga ha noqoto ama kuwa kale bulshada noqonaysa ha noqoto inaad tagtid inaad baratid dadka wax ku oolka inaad networking samaysid oo Allah musta'aan eventiyada iyo seminaarada waa meelaha ugu fiican ee ka heli kartid saaxiibada ugu wanaagsan ee noloshaada ku soo maray iyo dadka noloshaada bedelay markasta isku day marka event ka soo dhacaysa inaad tagtid oo Allah musta'aan waliba haddii aad ka shaqeyn kartid oo eventka aad ka noqon kartid dadka qaban qaabinaya ama dadka volunteerka ku shaqeynaya wax weyn bay ku siin doontaa albaabo waaweyn way ku furi doontaa marka markasta isku day inaad eventiyada ama meelaha bulshada sugu imanayso ama meelaha wax ku oolka inaad dadka ka dhex muuqdo markasta iyagu raba inay wax bixiyaan instead halkay wax ka helayeen inaad dadka noqotid isku day arinka kale ku xiga waxa weeyaan way dhici kartaa maanta inay ka jajabanta inaad xaaladaada ku jirtid inaad filashadaadii aanad helin marka isku day inaad naftaada rajo gelisid rajadu waa wax ugu fiican in haysano inaad Ilaahay isku xidhid maybe dhici kartaa maanta inay duruufo ay ka jajaban tahay maybe maanta dhici kartaa inaad xaaladaada ku jirtid maybe marxaladaha adag ee urugada iyo murugada ku reeba dad inaad ku jirtid ba macquula ama waalidkaaga gooriyooday ama inay xaalad xun oo dhaqaale xumo iska jirto wadankii Allah musta'aan ku nooshahay naftaada u bishaare mid kale naftaada u naxariiso ruuxaantii waxaan nafteena la hadalnaa 80,000 oo fikradood baa maalin kasta inoo soo dhacday intaas oo jeer baan nafteena la hadalnaa ka naftaada la hadashid si naxariis loo la hadashid oo si degan u la hadashid wax walba khayrayaan wax walba wanaag bay tagayaan Ilaahay wax fiican buu hayaa naftaada si wanaagsan u la hadal rajo fiican geli xaaladu haddii ay maanta xun yihiin britole hagaagaya britole ayay hagaagayaan markasta san mahaanaso inna maca al-usri yusra waa ka Ilaahay quraankiisa ku leh walaas kasta fudeed baa ka dambeey marka isku day inaad naftaada markaad la hadlaysid sidee kano naxariis laad u la hadashid sad naftaada u la dhaqantid waxay ka dhigan tahay dadka kale u la dhaqantid marka isku day markasta inaad naftaada si naxariis leh aad u la hadashid arinka kale naftaada ku dhisi kartid waxa weeyaan inaad Ilaahay si toos ah ugu xirantid runtii wax kasta inuu baahanaan maanta ama wax kasta inuu noloshan ka rabno waxa ugu waaweynaya Allah musta'aan ay qacantiisa ku xirantahay waa Ilaahay inaad Ilaahay baradid inaad shantaada waqti jamaacadka ku tukatid hadii aanad ku tagin kareyno mararka qaar kood maybe dhici kartaa bilaadan baynu nahay daciif baynu nahay inaad salaadaha ilaalisid Allah musta'aan shantaada waqtiyaad on time ku tugatid oo Allah musta'aan shantaada waqtiyaad ilaalisid wax badan bay ku furi doontaa inaad subaxii hore u kacdid oo intaad subaxii hore u kacdid salaada jamaaca ku tugatid wax akhridid Allah musta'aan dadka kale ka hor kacdid wax badan bay ku siinaysaa arinka kale ku xigay naftaada ku dhisi kartaa waxayaan maanta xirfado wax ku oolad ayaad baran kartaa hadii maanta dhaqaale yar ay kugu jirto ama dhaqaale jaban channelka in badan baa kaga hadalnay xirfado ayaa jira maanta aad lacag ka sameyn karsid xirfado badan baa jira xirfada video editing ha noqoto xirfada graphic design ha noqoto xirfada web design ha noqoto hadii aad web design garanaysid oo wordpress aad garanaysid si loo sameeyo kiimamka si loo customize gareeyo hadii aad ku garanaysid anaaba shaqo ku haya hadda oo strong portfolio haysatid oo garanaysid si loo sameeyo website fiican oo badan aad soo dhistay 3 sano experience aad leedahay ila soo
xiriir insha Allah hadii la yiraahdo anaga raadinayna qof nagala shaqeeya hawshaas marka isku day inaad xirfadaha baratid hatta xirfadaha baratid maanta waa free YouTube ku jiraan Skillshare ku jiraan meelo badan bay ku jiraan isku day inaad xirfadaha master ku noqotid oo master gareysid hadii aad xirfad baratid xirfado markasta awood bay ku yeelayaan hadii aanad qof xirfad lahayn oo kaliya ta Allah musta'an sida doonto qof fiican u noqo laakiin bil aadanka waxay markasta raadinayaan maxaa faaliyo ugu daray marka markasta isku day inaad xirfadaha master gareysid xirfadaha min master gareysid waliba dhalinyarada gaar waxaan hoosta idiga xariiqaya xirfada web design-ka gaar ahaan WordPress inaad barataan oo sameysaan oo Allah musta'an aad barataan outlier bay ka dhigi doontaa muddo dhowr sano soo socda outlier bay ka dhigi doontaa marka hadii aanad garanay maanta bilow maanta YouTube ka baro maanta Skillshare ka baro arinka ugu dambeeya ku soo gabagabeynay waxa weeyaan inaad caadooyin fiican sameysatid waxaan ka hadlaynaa waa caado inaad wax baratid waa caado inaad Allah musta'an naftaada dhistid waa caado ma wax ma tagaya ilaa maalintaad ka dhimanaysid every single day sidaad u cadeeytid sidaad cuntada u cuntid waa inaad caado uga dhigataa waa inaad caado ka dhigataa inaad dad fiican isku hagarisid waa inaad caado fiican ka dhigataa inaad muuqaal fiican daawatid waa inaad caado ka dhigataa inaad wax akhrisid waa inaad caado ka dhigataa inaad xirfad baratid waa inaad caado ka dhigataa inaad Ilaahay ku xilnaatid shantaada waqti on time ku tugatid waa inaad caado ka dhigataa every single day is count maalin kasta way tirsan hadii maalin kasta iyo minute kasta aad focuskaaga isugu geysid hadii aad daqiiqadaha aad ilaalisid sanadaha iyo biluhu iyaga gaarkooga isku ilaalin doona waxaad arki doontaa adigoo sodanka ku jira nolol fiican soo dhistay xirfada dhistay qof confidence-kiisa iyo masha Allah markuu soo hor istaago la dhadhansan karayaad noqon kartid wad gaari doontaa waqti dheer ma waa bari ayaad gaari doontaa insha Allah dhamaantii guul baan rajaynayaa gaar ahaan dhalinyarada mustaqbal qurux badan baa inaga horeeya niyadiina khayr u sheega didiilooyinka iyo waxyaabaad qalbiga ku haysan wax walba waa la gaari adiguna waad gaari karaysaa Ilaahay tala saaro dadaalna xaqa ka wad assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh